عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan ku soo dhawaada wareysi kooban oo gaar ah oo aan la yeelanayo Dr. Adna Aadan Ismaaciil oo booqasho ku tuurta magaalada Stockholm ee xarunta dalka Sweden. Marwa Adna Dr. Adna ku soo dhaw MMTV iyo Stockholm ba. waa dhawahay hooyo. aad baad mahadsantahay. Adna safar baad ku maraysaa wadamada Yurub gaar ahaan maanta waxaad ku sugan tahay magaalada Stockholm. Bal naga waran safarkaagan iyo ujeedadiisa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta safarku waa safar dheer. Waxaan ka bilaabay Ingiriiska. Ingiriiska hortii waxaan ka bilaabay Barcelona, Spain. Halkaasoo aan fursad aan ka helay inaan baarlamaanka Catalan inaan ka hadlo oon qadiyadda Somaliland kala hadlo. Waxaan kaloo fursad u helay inaan madaxweynaha gobolkaas Catalan isagana aan kulan la yeesho runtii aad muhiim u ahaa oo aanu ka wada hadallo waxyaabo badan ay ka mid yihiin dekada berbera horumarkay gaadhay iyo caalamku siduu uga faa'iidaysan karo ama uu uga heli karo fursad dekada berbera. waxaan ka wada hadalay muhiimadda ay leedahay dhaqaalaha Ethiopia ay berbera u leedahay xiriirka wanaagsan ee naga dhaxeeya iyo sida taas loo sii kobcin karo waayo Catalan qudheeda Barcelona ayaa dekadaha ugu waaweyn maraakiibta ee Mediterranean-ka bay ka mid tahay. Marka dhaqaalahaas xiriirkaas iyo danaha na wada kulmiya ee horumar inaan ka wada hadlo. Marka aad iyo aad baan ugu farxay sidii wanaagsaneed ee wadanka la igu soo dhaweeyay. Ingiriiska qudhiisu isna waan markaas haddana ku soo noqday. طبعا حديد wanaagsan oo soo jireen baa naga dhaxay Ingiriiska iyo baarlamaanka iyo dawladda Ingiriiska. Marka fariimo iyo qoraal ayaan isdhaafsanay. Waxaan markaa aan imid Jarmal shalay waqtigan hadda waxaan baarlamaanka xubno baarlamaanka ka tirsan federal baarlamaanka federaalka ee Jarmalka ayaan warbixin saacadiya bara aanu kala qaadanay oo qadiyadda Somaliland nabadgelyada Somaliland horumarka Somaliland waxaan markaa iyagana aanu xiriir la yeelanay qolooyinka arrimaha dibadda iyo nabadgelyada. maantana halkan aan imid iyadana waxaan u imid wada hadallo maxaan ku dhahay xarunta Olaf Palme oo ah xarunta la wada garanayo democracy-ga iyo maxaan ku dhahay horumarka dimuqraadiyadda iyo xuquuqul insaanka iyo dabcan waxaana nagu soo food leh munaasabadii 18 May oo maalmahan loo diyaar garoobayo dabaaldegeeda. taasna waanu imid haddii Ilaahay ka dhigo iyo ummadayda Somaliland Yurub degan inaan kalsooni in wadankeena wanaagsan yahay wadankeena nabad qabo nabadna la heli doono shaqaaqada ka jirta bariga dadka la duufsaday qolooyinka Puntland ay duufsatay guryahoodii ka soo saartay iyagoo been u sheegayo guryahooda kaga soo saaraya baasaboorada helaysaan iyo waalidin diiwaan gelinaya iyo guryahoodii dhisnaa camirnaa ka soo saaray say u bilqaystaan uga soo saaray. Marka dadkeenu intaa wuu ka bogsan waayo 99% waxaa lagu ducaysanayaa in Ilaahay nabad ku soo celiyo dadka walaalaha ah dadka isjecel dadka ehelka ah shisheeye fargelintaa shisheeye ee Puntland naga imanaysa na inay iska dhammaan doonto waayo dee Puntland iyadii baaba nabadgelyadeedii ay kala daadsan tahay horumarkeedii kala daadsan yahay iyadii baaba lagu ku taagnayn. Marka inay dad kale lugoyso ayuunbay dee ay damacsanay taana ummadii fahamtay dadkan iyada oo ahaana fahmay kalgacaylkii iyo ducadii aanu hayeyna waa halkeedii damqashadii aanu hayeyna waa halkeedii. ما شاء الله أدب ما صنتها ورنت وكاجي سنتها سؤال كلام دوني كودر مدة سيد مركز ترود بحين تاعد سينسي ولف بالم سنتر كده تشوفتي وكلا يعني مدرب بقصة شخصية مركز عفمات قلت واحد حقوق الإنسان كي يقرأ ماذا مدوبيو مركز بالسيرة كمان هذا نوشة تو
xuriyatul qowlka amba xuquuqda insaanka Somaliland halkii maanta taagan tahay والله horta meel wanaagsan bay taagan tahay waxaan horta arkaa isbedel weyn wadamada aan maray muddadan sanad iyo bar 2 sanadood isbedel weyn baan arkaa runtii Somaliland طبعا waa wadanka kaliya ee xuquuqda insaanka aad u qiimeeya waxa ka marxaatiya doorashooyinkeena 7 doorasho ayaanu sameynay beenii baynu qabsanaa inagana lacagtiinaynu ayanu ku kharash gareynaa xisbiyaynu sameynaa doorashaa timaada tartan baa yimaada dowlad hoose iyo dowlad dhexe waynu dooranaa madaxweynayaal baynu dooranaa marka runtii waxyaabo lagu faano weeyaan oo u baahan inaynu kobcino oo ilaalino oo nabadgelino oo aanay tartanka yare hoose xisbiyadu aanay inaga maxaan ku raayay inaga khasaaraynin horumarka aynu gaarnay way xisbiyadu iyaga bay dan u tahay in laga soo doorto wadan dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada iyo xuquuqda insaanku ay qiimo leeyihiin marka xisbiyadu waxaan ka codsanayaa inaanay cayaha ay isku tuurtuuraan iyo waxyaabahaas aanay noqonin qaar weji khalada ka bixinaya horumarka Somaliland waxaa ka marxaatiya Somaliland horumarkeeda 12 sanadood ayaynu Soomaaliya aynu dowlad wadaagaynay 12 sanadood 60kii ilaa 1990kii 30 sanadood wax ka dhaca mooyee Soomaaliland wax kuma kordhi jirin magaalooyinkii 60kii aanu ka dhaxalay Ingiriiska Hargeysa Berbera Burco Boorame dalal dhisan bay ahaayeen magaalooyin dhisan bay ahaayeen 30 sanadood wax ka dhaca mooyee markii aynu 1990kii dib ula soo wareegnay nabadgelyadeena waxaynu dhaxalay magaalooyin burburay dhaqaalo aan jirinba xasuuq bay nagu dhacay burbur bay nagu dhacay 32 sanadood ee ka dambeeyay 1990kii ayaa horumarka ugu weyn Somaliland gaadhay wanaagsan ugu dambeyntii waxaan anagu imanay 18 Mayna xagga kale caafimaadka aad uga shaqeysa wadankii oo horumar badan ka gaarsiisay oo dhakhtar iyo jaamacad baad ka wadaa bal ka waran xaggii caafimaadka hooyadii dhalankii caafimaadkooda inoo soo koobaya horta hawshaas waa hawl weligeed ba socota wadan walba kanaynu joogno kamida Mareykan meesha doonto Ingiriiska waa hawl mar walba hawshaas waa bid socota u baahan kubcin toosin hagaajin laakiin sida halkaynu maraynay 1990kii oo ahayd baaba iyo halka aynu maraynaa waa wax loo wax kala fog laakiin se weli maynaan gaadhin halkaynu la jeclaan lahayn ubadeena marka weli waxaynu u baahanahay aqoonta la sii wanaajiyo cilmiga la sii waasiciyo hanaankeena shaqo oo waliba la sii toosiyo disciplinekeena iyo nidaamkeena oo la sii hagaajiyo hooyo iyo ilmaheedu waa qaali caafimaadku waa qaali inaan u wada shaqeyna loo baahan yahay waxaan aad ugu faanayaa oo aad iyo aad ugu faraxsanahay qiimeyntii dhaweyd ee ay sameysay gudida waxbarashada sare annagoo markii hore ahayn jaamacadda eedna ahayd kaalinta saddexaad ay ku jirtay in qiimeyntii dhaweyd inaanu kaalinta koowaad galay dadaal bay ku timid waxay ku timid nidaam bay ku timid inaanu horumarka aynu ilaashano kobcino qofka inaga dhintana ama inoo hagaagi waayo ama inoo bogsan waayana sababta ay inooga dhinteen ama wixii inooga hagaagi waayeen inaynu cilmi baaris samayno oo toosino si aynu kuwa dambe uga badbaadino waxaa meel lagu faanaynu joognaa Somaliland hambalyaan u diraya ummadda Somaliland meelay joogtaa bari iyo galbeed iyo meelay joogaanba meel wanaagsan baynu maraynaa yaynaan iska dhooqaynin yaynaan iska khasaaraynin horumarka wanaagsan ee aynu gaadhnay ما شاء الله قدمتي واحد وجه مالمت سيتمنك مي دي بلوصل نقشة حرية سوماليلاند شعب كل سوماليلاند يوناد كوسوية محاد لا ده هاي سيتمنك مي هو كالقعيل يا أمان يا فرحة يا بشبش يا برواقو عافمات يا عمر دير يا دمانتو تقولوا عينا يا فرحة إيو إن شاء الله إنه سيدو وأرك دونا وإنه بريا أو عصب أو سوماليلاندنا أقون سجدي adduunka ay ka hesho waynu inaga is aqoonsan waxba ugama baahnin oo horumarka aynu gaadhnaba aqoonsi la'aan baynu ku gaadhnay laakiin inta inaga dhimanna way iman doontaa waan hambalyeynaya hooyo kalgacayl iyo farxad aan faraxsanahay baan la qaybsanaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa maadsantahay nasiib wanaagsan ku rajinaya